caadooyinka iyo dhaqamada maalinlaha ah ee keena caajiska iyo daalka joogtada ah. markii la joogo goobaha shaqada iyo waxbarashada, qof kasta wuxuu jecel yahay inuu ku sifaysnaado ama ku tilmaamnaado dhaqamada wanaagsan. dhaqamadaas wanaagsan waxaa ka mid ah in la dhaho hebel ama heblaayo waa howlkar, waa qof firfircoon, waa qof nidaamsan oo howlihiisa u qabsada sidii loogu talagalay iyo waqtigii loo asteeyay. haddaba iyadoo saas ay tahay ayuu qofku isku arki karaa daal ama caajis, taasoo ku keenta inuu howlihiisa sidii loogu talagalay u qaban waayo, uuna halkaas ku waayo ammaantii ama tilmaamihii uu raadinayay ama lagu yaqiinay. muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah waxyaabaha dadka ku keena caajiska iyo daalka joogtada ah. si aad uga feejignaato ama aad iskaga ilaaliso astaamahaas aan habboonayn, fadlan daawo oo dhammayso muuqaalkan. kow, dhafarka iyo hurdo yaraanta. soo jeedka habeenkii saacado badan ama saamaleylka iyadoo uu qofku uuna helaynin saacado ku filan oo hurdo ah waxay keenaysaa caajis iyo lulmo uu dareemo maalinkii, taasoo ka dhigta qofka inuu ka wahsado dhammaan howlihii u yaalay iyo waajibaadkii maalinlaha ahaa, waxaana meesha ka baxaya yoolalkii uu rabay inuu xaqiijiyo. labo, cunista cuntooyinka waxyeelada leh. cunista ama qaadashada cuntooyinka dufanku ku badan yahay sida cuntooyinka diyaarka ah iyo cuntooyinka shiilan oo ay ku jiraan kaloriyo badan waxay keenaan ama ku horseedaan daal, waxayna jirka ka dhigaan mid sidii loo baahnaa aan u gudan karin shaqooyinkiisii ama howl maalmeedkii looga baahnaa. saddex, hurdo badan. hurdada badan ee maalintii waxay saamaysaa firfircoonida qofka iyo awoodihiisa. hurdada badan ee maalintii waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee mas-uulka ka ah caajiska iyo firfircoonaan la'aanta, waxayna caqabad ku noqdaan gudashada waajibaadka shakhsiyadeed. afar, samaynta isboortiska weliba hab khaldan. samaynta jimicsiga xad-dhaafka ah wuxuu qofka ku keenaa daal iyo caajis joogto ah, kuwaasoo ka dhasha isticmaalka xad-dhaafka ah ee tamarta jirka, waxayna horseedaa hoos u dhac iyo tabardarri ku yimaada murqaha jirka si guud jirka qofka. sidoo kale jimicsi la'aantu waxay horseedaa caajis iyo daal meel uu ka yimid aan la garan karin. jimicsiga oo noqda mid xad-dhaaf ah ama mid aan la samaynin, labaduba waxay keenaan in jirka qofku uu noqdo mid dareema daal iyo nashaad la'aan, waxayna ka dhashaan hoos u dhac ku yimaada wareegga dhiigga ee jirka. 5, cunto qaadashada qofka oo yar. jirka nooluhu wuxuu u baahan yahay xaddi cunto oo dabiici ah oo ku filan oo uu ka heli karo tamartii iyo canaasirtii ama nafaqadii uu u baahnaa jirku si uu u guto shaqooyinkiisii caadiga ahaa. qaadashada raashin nidaamsan oo isku dheelitiran waxay ku horseedaa caafimaad qab, firfircooni iyo in qofku uu gudan karo howlihiisii maalinlaha ahaa, weliba si heelanaan iyo karti ay ku jirto. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.